Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan ku soo dhaweynaa xarunta Baafo. Muuqaalkan waxaan isla la faguri doonaa hadii la raado Burgess Workflow wax loo yaqaano oo ah wadada amba nidaamka la raacayo markii wax la soo iibinayo. Si toos ah maanaya app-ka loo yaqaan Burgess. Gudaha marka soo galno waxaan u wareegaynaa marka RFQ-ga inaan diyaarino amba request for quotation-ka. Quotation-ka waxa loo diyaarinayaa supplier-ka dabcan si loo ogaado wuxuu hayo iyo qiimuhu ku iibinayo. New ayaan taabanaya inta wax ka dambeeyo supplier-ka wax ka dalbanayna ayaan kor ka soo qabanayna oo ah Dubai Trading Company. Qaybta hoose product-yada waxaan soo qabanayaa alaabta aan dalbanayno. Catalog-gaas ayaan hal mar gujinayaa. Kadibna waxaan rabnaa wuxuu si gaar ah soo qabanayaa Dubai wixii hore aan uga soo iibinay. Marka tigtaas ayaan ka qaadi doonaa. Waxaan rabaa inaan alaabo kale aan markaan u baahnahay inaan ka dalbano. Marka faraxas ayaan hal mar gujinayaa. meesha alaabaha dhan oo ay tusayo waxaan rabaa goodies oo kaliya inaan arko. Goodieska ayaa soo saaraya. aniga waxaan rabnaa inaan laamiyir soo dilab iyo soo dilix aan dalbano. Marka wax nooga yaal habeeraatay ma jirto. qiimaha kor ku qoran yahay ala xabal $2 bar midkaan $3 ayaa la iibiyaa. Marka aadkaas ayaan taabanaya inta wax ka dambeeyo. midkaan qatar xabaa ka rabanaa. midkaan kalena waxaan ka rabnaa 30 aan ka rabnaa. inta wax ka dambeeyo waxaan ku soo laabanayaa B005 oo ah waxa hadda aan sameeyno. intaas waa intii aan ugu talagalnay RFQ-geena. marka waa diraynaa. marka hal mar ayaan gujinayaa. dabcan haddii shirkaddan email ay leedahay send RFQ ayaan taabanaynaa. emailkaas ayaan ugu diri doonaa. send ayaan leenahay. marka emailkooda si taas u aadi doonaa. aniga wax email hadda iigu samaysan ma jiro. haddii inta aan u sameeyo email oo aan soo qaato emailkaas oo emailkan isticmaalaysaa send email ayaan taabanayaa. marka wuxuu sameynayaa emailkaas ayuu isticmaali doonaa. intaan waxay noqonaysaa faahfaahin yar iyo waxa loo sameeyo waxa la rabo quotation-kii iyo PDF aan ayuu dirayaa. marka waxaan leenahay u dir. marka send ayaan taabanayaa. RFQ-gan automatically waa la diray kor hadaa fiirisid. marka wuxuu taagan yahay Burgess order ahaan ayuu markaan u istaagayaa. haddii uu ka soo jawaabo ninka odaga ahay dabcan waxaan taabanaynaa confirm order ayaan leenahay. marka si Burgess order uu gudbo ama si official u noqdo haddii uu ninkan odaga ah oo dalabka aan ka dalbanayno Dubai Trading Company uu soo aqbalo. marka confirm order ayaan taabanaya. waxaan ka soo qaadaynaa inuu aqbalay alaabtii kadib inuu soo dhiibay warqadda biilkan ay la socoto. alaabtaas ka hubinaynaa 30 inay tahay. receive ayaan taabanaynaa. inta wax ka dambeeyo tirada markaa hubino oo la soo tiriyo oo okay noqoto validate ayaan taabanaya. marka alaabtaas waa haysanaa. waxaan ku soo laabanayaa B005. marka waxay noqonaysaa in aan warqadii biilka markaan systemka aan gelino oo ah warqadii warqadii oo noo soo dhiibo waxay noqonaysaa upload bill inaan taabano. kadibna warqadii meeshaan dhigana ayaan ka soo qaadanaynaa. laasi warqada aniga hadda meeshaan warqad kuma hayo laakiin kuwaan iska soo qaban doonaa. warqada in uu u soo diray sidaan oo kale. laasi warqada inay taas oo kale tahay soo geli ayaan leenahay. automatically hore ayay ka soo galaysaa. marka waxaan taabanayaa taariikhdaas ka sixi doonaa. waxaan March 10-keeda ayaan ka helnay bill number amba invoice number-ka soo diray. numberkeeda ayaa meeshaas lagu qorayaa. alaabii waa kuwana. dabcan journal entry-ga markaan fiirinayno laba account ayay saameyn ku yeelan doontaa. inventory-ga waxaa ku soo dhici doona itemadan lacagahooda oo gaaraya 215. account payable-kana waxaa ku dhici doona 215. alaabtan diin ayaan ku qaadanaynaa. confirm ayaan taabanaya. marka si toos ah ayuu wuxuu sameynayaa marka alaabtaas inuu systemka uu soo galo. haddii marka report-kan aan ku soo laabano inventory-ga reports kadibna stock hal mar aan gujiyo labada shay si toos ah u soo galayaan. iron sheet-kii oo 32 cotton xabo $2 bar ku fadhida. iron sheet-ka 36 numberkaas 30 xabo ayaan helay $3 ayuu ku fadhiyaa. lacagtaas markii la isku geeyo 215 ayay noqonaysaa. xagga accounting-ka haddii aan imaano oo partner ledger-ka aan ku tuso Dubai dabcan waxay noqonaysaa lacagaha uu nagu leeyahay Dubai 240 ayay noqonaysaa. diin hore ayaa jirta saan u jeedo. haddii aan hal mar aan kala bixiyo oo aan gudihiisa aan galno
25 hore noogu lahay haddana 215 oo badeeco ayaan ka soo deensanay marka dawbaanta waa kala siibi kartaa dhacdo ugu dambaysa waxay noqonaysaa biilkan ugu dambeeyay haddaan soo qabanay oo ah 215 marka saameyntaas ayuu la imaanayaa xagga balance sheet naftigiisa daa fiirisid inventory waa ziyaaday account payable kan waa ziyaadaya marka nidaamkaas ayay noqonaysaa nidaam isku xiran oo purchase workflow loo yaqaano laga soo bilaabo RFQ-ga ilaa alaabta la qabanayo haddii imaado in lacag la bixiyo oo aan ku soo laabano isla purchase-kii oo aan imaado Dubai kadibna aan u soo gudbo qaybtan biilka oo lacagihii baygan aan imaano dabcan lacagaha saacada ayaa loo bixi karaa salaam bangi ayaan ka bixinay haddii 215 la siinaa waa okay haddii qayb kamid ah la bixinaa tusaale 150 haddii la bixinayo inta kale waxay iska noqonaysaa lacag hareyso oo ah $65 waxaan leenahay keep open ku hay $65 lacag weli aan la bixinin ka dhig si hadhow gadaal looga bixiyo marka payment-ga si toos u taabanay waxay noqonaysaa invoice kan partial inuu noqdo qayb kamid ah la bixiyay qayb kamid ah waa la isku leeyahay qaybtan hoose u soo gudubno 215 ay ahayd deynta waxaan bixinay $150 waxaan ugu harayo $65 haddii accounting-ka u soo gudubno oo partner ledger-ka aan ku tuso ninkan odaga Dubai hadda waxa uu nagu leeyahay waa $90 waay marka 215 waxaan ka bixinay $150 aan ka bixinay marka labadan waa isleeyihiin biilka iyo lacag bixinta si toos ah ayay isku raacayaan marka waxa ay noqonaysaa in deyntii ay yaraato marka nidaamkan waa nidaam isku fadhiyo waaye dabcan barnaamijkan uu leeyahay